xilli bulshada beled xaw ay qabaan cabsi dhanka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee forex-ka loo yaqaano kadib markii hakad dhanka shaqada uu ku yimid shirkadahaasi intooda badan ayaa maanta waxaa lacagihii faa'iidada bixiyay shirkadda Camel Group of Company xafiiskeeda degmada beled xaw waa kuwan qaar ka mid ah dadkii lacagahooda maanta qaatay oo u mahadceliyay shirkadda Camel Group of Company xafiiskeeda degmada beled xaw magacaygu waan istaagaraad cali waxaan ka tirsanahay macaamiisha ka tirsan degmada beled xaw qaas ahaan Camel lacagaha hore aan qaadan jirnay xoogoo hakad yara galay coronavirus kan iyo wax uu dhibaatay iyo diyaar la'aan dhacday haddana way noo bilaabatay waxaan rajaynaynaa in hadda kadib uu si noogu bilaabatay ay ahaato dhigashada aan dhiganay 6 bilood laga joogo wax dhibaatana kale ma kulmin xoogoo hakad kan dhacay oo haddana ilaahay baa furay alxamdulillah intii barbagandaha dhacay iyo waxyaabaha waxba dhanka u dhigan lacagteena way shaqaynaysaa hakadka yaroo dhacay un bay nooga habsaantay haddana helnay alxamdulillah magacaygu cabshukuur aadan cabdi waxaan ahay macmiil ka mid ah macaamiisha shirkadda Camel Group maasha Allah hadda waxaan qaadanayaa lacagtii faa'iidada ay shaqeeyay lacagteedii waata hadda gacanta ku hayo aad arkaysaan waxa ugu mahadsan walaalaha qaaliga ee shirkadda Camel Group Soomaaliya soo gaarsiiyay horumar aan ma garanaysaa la taaban karo waxaan ugu mahadcelinayaa waqtiga iyo juhdiga ay ku bixinayaan waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ee doonaya nolosha inay maqaam sare ay ka gaaraan in ay macmiil ay ka noqdaan Camel Group waa shirkadda kaliya aan hadda dhigi karno waa shirkadda ku qanacnay waxaan rajaynaynaa inay sii wado lacagahana oo sidii u bilowdeen wixii hadda ka dambeeyaan insha Allah taala waxaan rajaynaynaa bil kasta joogtiin ay ahaato sidii horena ay ku soo noqoto insha Allah taala waxaan leeyahay guuleysto annagana waan ku qanacsanahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulaha ugu sareeyo gobolka Gada gaar ahaan degmada beled xaw حاجي dhaqano maaday oo waqti badan ku soo bixinay shaqaalihiisa insha Allah taala waana ku mahadsantiin waana ku qanacnay waana aaminsanahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Xaaji Muude Cusmaan Faarax waxaan ahaa odayaasha magaalada nabadoonada magaaladan kamid ahay ha ahaatee shirkaddan ilaahaygi noo keenan ku mahadinaynaa bil walba qaadan jirnay hadda intii cudurkan u yimid baan maxaan ku yiraahdaa ay naga rakatay haddana maanta ilaaha noo soo furay waan noo fasaxantay waan qaadanay waa dad wadani oo magaalo walba Kismaayo Muqdisho beled xaw daari iyo kule maxaan ku yiraahdaa wadani oo daara kula waaya ama in ka tagtaa meel ka adaana milhin hadda ilaahay ha barakeeyo waxbaan ka qaadanay waxbaan hore u qaadan jirnay hadda wixii ka dambeeyana way noo soconaysaa insha Allah taala ilaahay ha noo barakeeyo maanta waxaan joognaa Camel waxaan ka qaadanay macaamiisha Camel aan kamid ah lacagta ayaan ka qaadanay insha Allah waa u mahadcelinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo sidaas waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku sii daro bulshadii aad u shaqeynaysan oo ku mahadsantaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin fududeeyay idinkan xilka qaadeen waa aniga oo Adan Cali Aadan waxaan nahay macaamiishi Camel horay u qaadan jiray lacagta haddana lacagihii ayaan qaadanaynaa faa'iidada ahaa Camel way mahadsan tahay alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan waxaan qaadanaynaa waa lacagihii faa'iidada ahaa alxamdulillah waa bisha afraad hadda bisha aan qaadanaynaa waxaan noola sheegay inaan sidaan isi ka fiican u qaadani doono waxaan qaadanaynaa waa lacagihii faa'iidada ahaa oo Camel waxa ku mahadsan shirkadii iyo raggii noo keenay alxamdulillah ilaahay baa mahad iyo shukri leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Nuur Cadaabo Baado waxaan joognaa degmada beled xaw anigu waxaan ahay odayaasha degmada beled xaw wax garadka magaaladan shirkadda Camel Group ay joognaa dadka maalgashadayaashan kamid ahay Camel dad deegaan oo hadee dhulka hanti ku leh daaro badan leh Kismaayo iyo Xamar iyo meel walba guryahoodii ay joogaan deegaankoodii ay joogaan ummaday wax ka qaateen waa ummad iswada taqaan dadka degan beled xaw inoo waxigiis qof walba wax dhigtay oo share ku lahaa in kasta ba ahaade wixiisu uu heliya ilaahay idinkii ilaahay baa ku mahadsan dadkii dhamaan waa kuwan lacagii interestiga ay lahayn bay qaadanayaan maanta ilaahay idinkii Xaaji Dhaqane Maaday Dhabar waa maamulaha shirkadda Camel ee gobolka Gado waxa uu ka hadlay waxqabadka shirkadda Camel iyo waxa ay shirkadaha kale ee la midka ah Camel kaga duwan tahay Allahu rabbil alamin wa bihi nastaciinu ala umuri diya wa diin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'du waxa weeye aad baan u soo dhaweynayaa walaalaha soo yimid halkaan macaamiisha Camel Group of Company marka koobaad dadweynaha waxaan ka raali gelinayaa waxyaalihii maalmihii hakiska u dhacay
oo moogtahay shaqadii ay xoogaa hakiska u dhacayo wax guud oo xag ilaahay ka yimid weeye shirkadda ma ahan walaalayaal wax ka yimaadi ma ahan haddeertaana waxaan idinkugu bishaaraynaa lacagihiin ood maanta qaadanaysaan bisha hadday dhammaatana aad sii wadan doontaan aan kala go'aynin marka labaad wixii dib u dhac oo dhacay oo hakiskii karoonaha iyo cudurka ku yimid maalmaha ahaa waxa weeyaan waan ka baxnay waa idinkugu bishaaraynaa inaan ka baxnay ay saaki hawsheen horta sideedii ku soo noqotay waxaan filayaa xafiiskan waxaan sanadkii hore tagay bishiisa 9aad baan furnay ilaa yoomin haada oo hadda bishii 6aad had saaki joogno 9 tahay amaanadii naloo dhiibay sideedaan u gudonay waxaan u sheegi doonaa hadda ka dambana inay sii wadi doon insha Allah taala waxba aysan naga halaabi doonin kamal waa shirkad weyn oo Soomaaliya dalka daafiis degan dibadda iyo dalkaba degan weeye madaxdeedana lagu kalsoon yahay oo dalka iyo dibadda joogaan waa dad hantiila ma ahan dad oo ma garanaysaa hadda oo dhalinyaro la soo qoray midna ma ahan waa dad odayaala saas way horta dadkeeda waadna garanaysaa waxba yaan idinkugu sii noqonin waxaan idin sheegaynaa hawsheenay sideedii bay tahay say hore u ahayd oo aan saaki lacagta u bixinayna ayaan u bixin doonaa ayna sii ahaan doontaa walaalayaal soo dhawaada wax dhib ah ma jiraan lacagtana waxa weey waa sidaan isa ka sii fiican mana arki doontaan anagu ma nihin dad hadda yimaadayo gedo ku cusub ama deegaanka Soomaaliya ku cusub anaga meeshan degnaba kamil waxay ugu duwan tahay shirkadaha xafiis meesha ay ka furato hanti ma guurtay dhigataa ama dhul ama daara ayay ka dhisataa hadda waad ogtiin xamar oo kale moolal baan ku leenahay balad xaawadan hadda aan joogno hadii hantida aan qaadin hanti ka badan baa naga taal sheerarka waxa weey iskama bixiyo limit baa la bixiyaa limitka la bixiyana waxa lagu saleeyaa hantida taala balad xaawo waa mar kasta in hantidanada ka badnaata hantida ummadda aan ka hayno balad xaawo taalo kismaayo kale waa sidoo kale waxa aan ka hayno wax kale ka laba jibaarmay ayaa inoo yeelo marka waa ku talagalnay inay haba yaraatee meeshaas aysan ka soo bixin kalsooni darra ummadda xoolaheedana aysan ku lumin aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan xoog u saaraynaa oo ummadana u sheegaynaa inay wax mas'uuliyad darro ka jirin xoolaha ummadana amaanadooda aan aad u gudan doono gacan amaan ay ugu jirto wixii aad shirkadda aamintaan wixiinana aad moogtahay sideed u qaadan jirteen bilii hore iyo bilaan hadda aan joognaba aad u sii qaadataan aana moogtahay wararka la leeyahay shirkad hebel aad tagtay wax xasaas ah inaanan la mid ahayn inaad fahantaan baa fiican waxaa qanaaco idinkugu filan lacagaha hadda aan bixinayno oo hadda aad qaadanaysaan adduunyada maanta waad ogtiin go'doon bay gashay caalamka oo dhan wax ka dhacay weeyo annaguna dee wixii aan moogtahay macaamiisha lahayd saaki farahan ka saaraynaa wax nagu haraya ma jiraan aad baad u mahadsantihiin soo dhawaado waa idinla shaqaynaa inaad nala shaqaysaan waa codsanayna assalaamu calaykum waraxmatullahi